cid kastoo arrintaa gashaana waxa weeyaan hay'adihii dawladda ee khusaysay way baadhis bay ku jiraan waxna gacanta lagu hayaa baadhistana way wadaan ka hor dhici mayno laakiin waxaanu halkaan ka ballan qaadaynaa oo go'aan kii ka soo baxay go'aan gudida nabadgelyada ee gobolku ay qabatay ee go'aanka barasaabku hogaaminayay aan go'aan ku gaadhnay in meel alla meesha ay gasho iyo cidda ay gasho inaan laga hadhin ee har iyo habeen loo taagnaado sida hawsha wax looga qaban lahaa haduu Ilaahay dhaahdo kollaba annagu culimada diinka haddaanu nahay wixii dil camdi ageysta annagu naxariis agtayada uma taalo wixii kitaabka Ilaahay in la mariyo weeyi walakum fi qisaas hayatun ya ul albab qisaasta waxa idin ku jirta nolol bay idin ku jirta waxa ka tacsiinaynaa warisadii uu ka dhashay ninkaasi waxa ka tacsiinaynaa booliiska waxa ka tacsiinaynaa haddana qaranka Soomaaliland intaba waa ka tacsiinaynaa isagana Ilaahay ha u naxariisto ciddii gacanta geysatay gardarradana Ilaahay badkaa soo dhiga insha Allah taala waxaan cambaaraynaynaa waxaanu ka soo horjeednaa waxaan ogolayn qadiyada maanta halka ka dhacday ee markii ummadda dhuunta ciddii hawsha qabatay aad iyo aad baan cambaaraynaynaa aad baan u diidanahay waxaan Ilaahay ka baryaynaa sida loo sheegay in ay gacanta soo gasho xukuumadda ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa inanka horta dhintay askariga Allah u naxariiso inankaasi ma dhiman ninka maanta arinta gacanta geysta ee waxa la yimiday ay biyihii tahay mashruuca tahay waxa weeyaan nin Borama dilay ninka uu naga wada baxay nin naga dhintay weeyaan nin qabiil nin xaafadeed ma ahayn nin qaran buu ahaa halku joogay baa yaa cadeynaysa inuu yahay nin maxaan ku leeyahay cidna ahayn mashruuca marineed oo biyaha abu ninkaasi dadka maxaan ku leeyahay wadaha gaarka iyo gaardiyaanka dad helo oo ah oo meesha deegaankooda la yaqaano nasab oo fiican buu ka dhashay waa qadarka Ilaahay umba qoraa gobolkana laguma yaqaan runtii arrimo caynkaasa walow ay marmar iska dhici karto meel walba ay ka dhacdo marka gabigeenba idinkii annagaba samiriyeen baan Ilaahay waa waxaan fogeyn oo arrin siyaasadeed uma eka ninka marxuumka dhintay gardarro iyo ku dhacday Ilaahigay ha u naxariisto waanu ka xunnahay waa gacan ka gardaran waa xaq darro isagana Ilaahay jannada ka waraabiyo waxaan iyagana samir iyo iibaan Ilaahay uga baryayaa inuu siiyo eheladiisii iyo aqaaribtiisii samir iibaan inuu Ilaahay ka siiyo laga imaado dhacday waxaad moodaa hadalka in la yar marmaraya halis iyo ficiis iyo waxa la leeyahay marshuucaasi haddaan la qaban anagu horta guddi nabadgelyo ahaan kulay go'aan baan gaarnay waan soo yeeray markiiba wax allaale waxaan isula hadlaynaa ma jirto raad allaale meel allaale meeshu galo iyo qofkii sida in yar uga qabanayna waan helaynaa laakiin waxaan idin sheegayaa inaanu mashruuc soconayno aan ku tashan haddii dadkii waxa sameeyay aan la helin inay been isu sheegin mashruuc dambe oo halka ka sameeyay oo biyo balaarintii oo ka imanaya ma jiro dhiiga iyo dhagarta taala waxa uu taala deegaankan iyo beeshan iyo dadka meesha degan helisteedii raacideena waxa uu taala taliyaasha halkan jooga ee ammaanka qaabilsan haddaan laakiin nahay wasaaradda horumarinta biyaha horumarin baan ka fikirina waxa way meesha joogto hore uga sii dhaqaaq dhibka soo ku dhacdaana waxa weyn dhiilo iyo dhunkaabena ku tahay runtii waanan diidanahay runtii hadda waxa la soo sheegay in hay'adii iyo tiimkii waday lacagta bixinayay ay leeyihiin war halid ku yimaado waana khasab waajiba in mashruucaas uu sii socdo waa waajib weeyaan shirkadihii meesha laga soo saarina runtii dayuuna ammaankoodii bay doonayaan hawshaasi waxa uu taala waxa weyn qaranka qaybta qaabilsan arinta imika dhacday waxa weeyaan fartu dadka ma wada gaadhini fartu meel bay ku qalloocdaa meesha ka soo jeeday ku qalloocdaa arunta isku sheegno muddana waa la dhowrayo nabar la dhowrayay bay ahayd saaka suldaanbaada waxaan ku yidhi cagtii joogsan weydaa mar bay ceeb la kulantahay marka waxa weeyaan waxa laakiinse nasiib wanaaga arrintu sida warbixin badan oo helay meel kaliya hatay ku egta meeshii cagteedii waa lagu joogaa arrintu way dhowdahay
waxa weeyaan dadaalkeedana ha la galo ciidanka dadaalkeeda ha la galo arrintaa ha la soo afjaro ninka awdal qof ku dilaa wuxuu hadaday noloshii ummadda wuxuu hadaday mustaqbalkii ummadda wuxuu hadaday horumarkii ummaddan inoo ogolaan mayso kor iyo hoosba waanu sheegaynaa dilkaasi markuu shalay dhacee uu soo dhiiladaasi soo yeedhay mar waan naxayoo dil baa gobolkii ka dhacay baa la yidhi mar labaadna waan sii naxayoo ninka meesha ku dhintayna abtigay buu noqday